beesha mursada waxa ay gogol dhigeen beelaha habargidir iyagoo iyo duduble iyagoo u sheegay in wax kastoo qaldan la sixi doono ra'iisul wasaaruhuna uu ka soo laabtay qaladkii uu ku kacay laakiin waxa dhacday maalintii hotel afrique loo dhigay gogosha beesha habargidir iyo beesha duduble ee uu ra'iisul wasaare Khayre yimid in habeenkeedii uu taabid cabdi soo magacaabay oo wixii laga sugay ay noqdeen in habargidir loo soo magacaabay laba gabdhood oo gudoomiyaasha degmooyinka loo magacaabay halka gudoomiyihii degmada beesha saruurna uu xasan siistay xasan Khayre uu siiyey reerkiisa ama uu siiyey reer kale oo aanayn habargidir gudoomiyihii degmo ka maqan iyo laba gabdhood oo loo soo magacaabay habargidir iyo duduble ayuu abaalkii ama wixii laga sugayay iyo gogoshil dhiga ay noqdeen waxa isweydiin mudan muxuu beesha mursade gabar ugu magacaabi waayay degmada Howlwadaag muxuu beesha mursade gabar ugu magacaabi waayay Daaniile taabid cabdi muxuu hadduu doonayay gabdho ugu magacaabi waayay ma taqaanaa waa la soo amray oo waxa weeye weliba habargidirow waxaan idin magacaabaynaa gabdho haddaad diidaan inaad abgaal la culowdaan oo kala qaybintii iyo qorshihii hore ee ahayd dagaalkii markuu socday Almahdi Ciidiid in xaggaana madfac loo tuuro xaggaana madfac kale loo tuuro ayaa maanta la casriyay oo qorshihii qiyaanadii ayaa socdo waa waxay odayaasha ama xildhibaanada beeshu maanta ii soo sheegeen dumay la soco barnaamijka daqulaaqay noqotee yahay sidaad ogeydeen oo horay xildhibaanada iyo odayaasha beesha mursade ama karinle ayaa waxay gogol u dhigeen dhigooda ama qaybaha kala duwan ee bulshada beesha habargidir shirkaasi oo ahaa in lagu saxayo ama gogoshaas oo ahayd in lagu saxayo qaladaadkii qaawanaa ee ra'iisul wasaare xasan Khayre ka galay beelaha guud ahaan hawiye ama ha ahaadaan habargidir ama abgaal ha ahaadaano ama sheeqal ha ahaadaano ama baadacadda ha ahaadaano ama ajuuraan ha ahaadaano in ama udeejin ha ahaadaano qaladaadkii uu galay oo dhan inuu sax inuu diyaar u yahay laakiin gogoshaasi oo la dhigo hotel afrique horena ay xildhibaanadu iga codsadeen inaan dadweynaha u dhashay beesha hawiye u sheego in xiisada la dejiyo oo laga warsugo ka dhabaynta ballanqaadidiisa iyo wada hadallada furmaya waxay ugu dambeyn dib ii soo wacay xildhibaanada labada dhinac oo igu yiri arrintaa waxay noqotay sheeko bareley waxayna gundhigeeda noqotay in ugu dambeyn xasan Khayre oo ka codsaday xildhibaanada iyo odayaasha beesha habargidir in ay dagaal la galaan xildhibaanada iyo mataqaanaa odayaasha beesha abgaal taas oo nuxurkeeda ama ujeedkeedu ahaa in beelaha heeraab la kala qaybiyo oo siyaasiyiin u dhashay beesha mursade ay rabeen inay isku dhiftaan habargidir iyo abgaal oo ay kala qaybiyaan iyagoo u soo maraya wadooyin sandareere in loo tuuro qaar kamid dad ku dhashay beesha habargidir ama qaar kamid dadkaasi oo la doonayay in xilay waxa lagu qanciyo waxa macna lahayn laakiin ujeedka weyn ee loo dagaalamay ma ahayn in habargidir xil la siiyo ma ahayn in habargidir lacag la siiyo dad u dhashay waxay ahayd in danta guud ee beesha iyo midnimadeeda laga shaqeeyo taas oo aan sida hore ku sheegaba xildhibaanada hore iga codsadeen shacabka in la wadaago haddana ay ii sheegeen oo ay soo waceen in wixii halka looga wada hadlay guud ahaan uu xasan Khayre ka baxay waxna aysan ka qabsoomin ujeedka uu lahaana ay ahayd in la culaadiyo beel kamida beelaha hawiye oo ah beesha abgaal ismaan sida ogtiin xasan Khayre wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii guddigii ololaha doorashooyinka ee Xashiq Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya laakiin sida uu ku sheegay email uu qoray qoladiin ajnabiyiina waxa uu xasan Khayre xilligii doorashada u sheegay Xashiq Maxamuud inuu gabar waqooyi isaaqa ku aroosay Nairobi kadibna halkaas ayuu u baxay isagoo dhinacaasi ka soo maalgeliyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanadii uu xiriirka la lahayna ku hanuuniyay inay Farmaajo codayaan taasoo qayb ka ahayd mataqaanaa qorshayaashiisa u degsanaa ee uu doonayay inuu ku dhabar jibiyo ninka ay muddo dheer saaxiibada ahaayeen ee ay isla meel dhigeen habka loo dhaqaajinayo shirkadda la Somagas and Oil oo ah shirkadda la doonayo in Soomaaliya kheyraadkeeda ay la soo baxdo xasan Khayre hadda marka uu sheekaynayo waxa uu ku sheekaynayaa in si qasab hubka looga dhigi doono beelaha habargidir iyo abgaal oo laga dhigi doono dad rayida oo isu gobolka banaadirna wax xaquuq ku yeelan dooneen xasan Khayre marka uu sheekaynayo
inta badan colaadiisa ama hadalladiisa waxay ku fadhiyaan in hadda ka hor beesha habargidir ay la dagaashay mursade oo ay qaxiyeen oo ay xoolahooda ballaqaysteen oo loo bixiyay Kuwait markii wuxuu leeyahay waa ka argoosanaynaa beelaha habargidir sidoo kale marka la weydiiyo maxay ka haleeyeen beesha abgaalna waxa uu leeyahay xashiiq ayaa balantii oo leh doorashada uga baxo guddiga xogin u ahaa oo halka ayaa colaad iga imaan kartaa haddii ay ugu awoodastaan ama xil sare ay ka qabtaan xukuumaddeeda si kastaba ha ahaatee hadda magaalada Muqdisho waxaa ka socda ama ka dhacaya wax la yaab leh waxaa ka dhacaya in askar laga keenay Puntland iyo kuwa laga keenay Jubbaland iyo kuwa u dhashay beesha Maryaxaan oo gada ka yimid iyo kuwa u dhashay beesha Mursada gaar ahaan habar cayno oo rasuulaha ku qabiila inay hubka ka dhigaan ama ay raasadaan askari military oo habargidira askari military oo ciidan ka tirsan oo mataqaana oo xaafadiisa u socdo oo mataqaana abgaala mid booliisa ayadoo waxyaabaha yaab kale ee magaalada Muqdisho ka dhacay kamid tahay in gaashaala sare mahad dollar oo ahaa taliyaha ciidanka booliiska ee loo yaqaan Bankrafti ee dawladda Ingiriiska ay maalgeliso in la weeraray oo gurigiisa laga soo qabtay oo la xiray oo waliba uu xirtay Sambaloolshe uu ku xiray godka Jilcow taasoo sharciyan mamnuuca in taliye booliis oo gaashaala sare ah ay ciidanka nabad sugidda xiran karaan haddii uu dib u gaaro taliyaha booliiska sharciyan waa in la soo mariyaa booliiska oo dacwadda booliiska looga qaaday gudihiisa laakiin waxyaabahaas oo dhan waxay noqdeen qorshooyinka uu wato mataqaanaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u soo dhiibayo Xasan Khayre oo sida muuqata ah nin cuqdadaysan ninka mid xildhibaanada beesha Mursade oo ila soo hadla xalaytana waxa uu yiri Xasan Khayre wuxuu noqday siyaasigii ugu beenta badnaa ama qofkii ugu liidnaa ee taariikhda aan mataqaanaa la kulma ama la sheekaysto xildhibaankaas wuxuu sheegay inuu sugayay 8 saacadoodna uu isaga gudaha gabar ka timid qurbaha kula sheekaysanayay dadkuna ay lahaayeen shir ayuu ku jira ra'iisul wasaaraha wuxuu dhaqanka noocaasa dhaqan aan lahayn ma aha laakiin iminka waxaan qabtay wiil hoolhoolan oo hadalka markuu raadinayo iska dhigay nin hadalka codkara oo qasab isaga raaganayo wuxuu qof noocaas oo liito يبهو لاقي نقطي دول مديدا نارقني دول مديدو دول مدون هايس كون نقن دول مديدو دول مدون هايس كون نقن هلاقي نقطي دول مديدا نارقني دول مديدا دول مدون هايس كون نقن دين دمبيتون دب وبحيان كدر دارمي كالدكتورو دب هلاقي نقطي dib u bixiyaan ka dardaarme ka digtoonow dab hulaaqay noqotee dulmidiidaan aragne dulmidiidow dulmidoon hays ku noqon deynta hub dambeetoon dib u bixiya aragne كالدكتورو دبه لاقي نقطي كالدكتورو دبه لاقي نقطي dulmidiidaan aragne dulmidiido dulmidoon hays ku noqon dulmidiidaan aragne dulmidoono dulmidiid hays ku noqon ha biqlayso dabaysha geedaha uma ruxdo inay ciyaarsiisay la soco barnaamijka